السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa Xamse Xuseen Cabdi. halkan maanta waxaynu ka bilaabi doonaa casharkeeni koowaad oo ku saabsan Microsoft SQL Server, taasoo aynu maanta ku baran doono sida ugu fudud ee loo sameeyo database-ka. marka la sameynayo laba siyaabood labadaba loo sameeyaa. mar halkan ayaa right click la yiraahdaa, kadibna new database. marka labaad isagana waxaa lagu sameeyaa query ahaan ayaa lagu sameeyaa. si aynu haddaba u sameyno database-ka labadaas siyaaboodba, waxaynu leenahay right click new database baynu ku dhufanaynaa. marka uu formkan inoo soo baxo, waxaynu ku qorinaa magaca uu yeelan doono database-keenu. waxaynu ku qorinaa baro oo Soomaali baan ka dhiganaynaa, baro database leenahay. waxaynu ku dhufanaynaa buntonkan okay si uu inoogu sameysmo database-keenani. xasuusnaada magaca database-keenuna waa baro iyo database. okay baynu leenahay, execute buu leeyahay, kadib waa inoo sameysmay. imika haddii aynu database-keena expand ku sameyno ama aynu fidino, halkan waxaynu ku arkaynaa baro database oo ah kii aynu sameynay. sida labaad waxaynu ku dhufanaynaa new query, amaba adigoo button keyboard-kaaga ku dhufanaya Ctrl+N. marka uu sidan kugu soo baxo, si aynu isagana sidiisa lamida database u sameyno, waxaynu leenahay create baynu leenahay database, kaas oo la yiraahdo baro database. marka kani waa uu jiraa macnihii oo inagama yeelayo inuu sameeyo, laakiinse lambar baan raacinaa, baro lambar 2 baan ka dhignaa isaga si aynu kala garanno. marka sidaas ayaan highlight odhanaynaa, kadib buttonkan execute baynu ku dhufanaa si uu inoogu sameeyo, amaba inagoo keyboard-keena isticmaalina F5 keliya ayaynu ku dhufanaynaa. kadibna execute baan leenahay. execute kadib waxaa weli command completed successful, halkana query executed successfully. sidaa ay tahay, weli database-keenii aynu sameynay ee baro database 2 ahaa weli xagan kuma aragno oo baro kaliya taagan, wax kale oo ka kacayna kuma jiraan totals. sidaa ay tahay, saynu aragno database-keena kligina right click baynu leenahay, waxaan ku dhufanaa button refresh, kadib halkan ayuu soo gelayaa. sidaa ayuu database-keenina inoogu sameysan yahay. halka aynu ku joojinaa casharka ku xigana waxaynu ku baran doonaa sida loo sameeyo tables aynu ku baraynaa insha Allah, isaguna sidan si lamid ah. marka casharkeenan yaraa simbalka fudud aynu ku baranaynay sida loo sameeyo database halkaas ha inoogu joogo.